بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. marka hore ilaahay baa hadlay subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa keligii mahadleh. ilaahayga nimcooyinka badan ee la tiri karayna siiyo mahadleh. ilaahay baa waxaan magana hambalyaanayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan jecelahay inaynu waxaan ku degdegayaa shalay taanu aasnay walaashay Abra Cali Waraabe ilaahay u naxariistee. marka gogashii baan noo taaloon ku degdegayaa ilaahay aynu barina ilaahay jannada ka waraabiyo iyada intii kale dhimatayba iyo marxuumkii inoo dhisay halkan Cabdulqaadir aan maanta ku baashaalayna ku dabaaldegina ilaahay u naxariisto. walaalayaal waxaan dhalinyarta qalin jabisay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhiga qaar saalixiina oo dalkooda iyo diintooda u adeega. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay aadna markay bilaabisay jaamacadan Finland bay noogu timi farniis baan u sameynay marka riyadeedii waa ka maanta alxamdulillah wa tacaala dalkeenii halka marisay. marka qofkii wanaag bilaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu sahlayaa qofkiisa wax qabo. waan ogtiin maantana dalkeena halku mariyo waa ogtiin wala inoo tashaday Soomaali meel ay joogtaba bari iyo galbeed meel kastaba waxay ku heshiiseen maanta inay burburiyaan wax allaale wax dambi oo galana garanayno. waxay nagu daran niman qaxoonti ah oo wadaad sheeganayo munaafiqiin ah oo Nairobi jooga oo shalaytana aflagaadeynayay hooyadeena adna dhaqtarada inagana inagu haya dagaal weyn. maanta waad ogtihiin laba arrimood baan ugu soo kornay oo aynu lahaan jirin. waxa weeye labada arrimood taladeena gacanta shisheeye lama soo geli jirin. maalintan guudida nabadaan ahayn ee nabadda bilaabinay ra'iisul wasaare safiirka u fadhiyay Jarmanka ayaa wuxuu nagu yidhi haddii maanta taladiinu gacantay ku jirtaa haddii maanta heshiis weydaan waxa iman doonta maalin ah idinko doonay heshiin weydaan oo taladiina shisheeye soo gali doona. wata Soomaaliya maanta haysata inagu 35 sanadood taladeena gacanta shisheeye ku mujiri jiray doorashooyinkeena. maanta gacanta shisheeye nagu yeeshay. waxa maanta iyaga inuu sheegay dad Soomaaliland ah oo goon istaageena ka soo horjeeda ayaa awood inagu yeeshay. aniga waa ogtihiin oo gudoomiyadeedii shacabka Soomaaliyeed iyo footay waayeen ceel wafay baa lagu soo qala wadii ogaa. maanta Soomaaliland baa loo diyaar gareeyay in la baabiyo. arrintu way soo dhaaftay Faysal iyo اعتراف iyo maanta in Soomaaliland gacanta dad inagu jira oo awood ku leh Soomaaliland mid dhaqaale iyo mid maamulba ayaa maanta Soomaaliland la heshiiyay shisheeyaha. markaana waxaan leeyahay xafladaha aan dib u yara dhigano talaha la isku yimaado dalka la daafaco. maanta mustaqbalkeeni ayaa gidaar ayaa dhulka ayaa miiska yaala. أنا دردارة كاسان لهاي وحن شغالهاي إن إلهينا سبحانه وتعالى وحكى بقينا مستقبل في عباد ليدهين لأنه هو الظلم وحنا نقول هذا الظلم إلهي سبحانه الظلم إلهي ما كوس قلنا سبحانه وتعالى. سو ما له وحبق بسنكر ويدي أو قبيل كصباح دولة وسمايستي كارب العصنا ودكستي هبنا وسمايستي سوماليا magaalo u degaysaa ma jirto oo wada madaxweyne fidmada lagu wada laascaanood wax kale loo moodo inaga la doonayo inagu burburiyo. laakiin waxaan leenahay inta qaxaar ka xoog weynaa Maxamed Siyaad Barmaciid ba ka xoog badneed laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ila guusha inaga Ilaahayna siiyay kuwa inaga Ilaahay insha Allah guusha keelina. laakiin inagu aynu gudaheena hagaajino aynu saamaxno aynu jeclaano markaas uu khayrku inoo baran doona.
إلهي أمدي عطيه وناقص برتي إلهي نجيه سبحانه وتعالى إلهي مدحني دد مدح أو وناقصن إلهي كف يعني إنك يوم القيامة وحلي المخ يوم القيامة يسود وياهي مدح لو حتى ما ضد عن خير لهن ملا إنك ينوسه ريان من يوم القيامة إلهي سبحانه كبر إلهي سبحانه وتعالى مدح وناقصن إلهي نسيه ملك السبع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.